Bismillah kusoo dhawaada cashirkeeni ku saabsanaa tiknoolajiyada oo aan nooga barateen mar walba inaan macluumaadkii ugu dambeeyay aynu kugu soo gudbino. Maanta waxaan baranaynaa sida codadka taleefanka codkiisa aad u badbedeli lahayd qaabka kugu habboon. Waxaad tegaysaa settings ayaa klik siinaysaa, kadib waxaad tegaysaa sounds and haptics meesha ku qoran tahay ayaa klik siinaysaa. Markaas siiso qaybta kore favorite on ring, waxaa waaye taleefankayga markuu igu soo dhacayo gariir ha igu soo dhaco iyo cod iyo gariir labadaba isla socdo. Mid option koowaad. Option labaadna waxaa waaye favorite on silent, on ayaa ka dhigaysaa. Markuu taleefanka silent ka dhigto gariir ha igu soo dhaco, macnaha gariir optionkaas ayaa on ka dhigaysaa. Labadaas option ayaa on ka dhigaysaa. Markaa ka dhigto gariir ayuu kugu soo dhacaya, cod gariir ayuu kugu soo dhacaya, silent-gana gariir ayuu kugu soo dhacaya. Headphone safety-ga oo hadda aan klik siiyey waxaa waaye asagana qaabka u isticmaali lahayd taleefankaaga headphone-ka markaa isticmaalaysid. Headphone-ka markaa isticmaalaysid dhagaha uu kugu jiro waxaa waaye waxaa u baahan tahay in aad ka taxadirto dhagahaaga, ka taxadirto qaybta maqalka si aysan dhaawac kaaga gaarin oo kale codka hadaad dheerayso. Meeshaas waxaa ku qoran to protect your hearing, si aad u ilaaliso maqalkaaga. Your phone will measure headphone audio levels. Macnaha taleefankaaga wuxuu cabirayaa heerka uu gaarsiisan yahay codka maqalka, heerka uu gaarsiisan yahay ayuu cabirayaa. Kadib wuxuu sameynayaa if you exceed the recommended 7-day limit, hadduu dhaafo qayb intii loogu talagalay wuxuu kusoo dirayaa notification sent and the volume is turned down, macnaha wuu isgaabinaya taleefanka. Notification waxaa kusoo dhacaya wuxuu ku leeyahay kale codkii ayaa zaid u dheereysay, marka limitkaaga waa dhaaftay ayuu ku leeyahay. Qaybtan reduce loud sound ayaa on ka dhigay. Markaa ka dhigtid waxaa macnaha ilaa intee aan gaarsiin kartaa 85 decibels meesha ku qoran tahay 85 decibels ayaa gaarsiin kartaa. Marka waxaa your phone you can analyze headphone audio and reduce any sound that's over the discipline, macnaha set discipline levelska gaarsiisay. Macnaha inta gaarsiisay ayuu waa dheerey kartaa, waa gaabi kartaa mujeedado. Marka inta aad gaarsiisid ayuu hadduu dhaafo wuu soo gaabinaya. Markaa yeelay taleefanka waa ku diidayo. Marka qaybtan saas ayaa loo isticmaalaa. Qaybtan oo reduce loud sound codka dheer si loo gaabiyo. Qaybtan kale oo hadda jiidmayso kale waa codkii waa dheereynaysaa, waa gaabinaysaa. Codka waa kaas waa dheereynaysaa, waa gaabsanaysaa. Meeshaan ka dheerey kartaa, ka gaabi kartaa. Waxaa ku soo ringtone openings haddaa klik siiso waa codadka meesha ka dooran lahayd. Codka aragtid oo markaas kugu habboon ayaa klik siinaysaa. Codka markaas kugu habboon oo adiga ku qanciyo ayaa ka dooranaysaa. Hadda midka default-ga ugu koreeyo waa iPhone-ka, macnaha default-giisa midkuu ku yimaado oo codkiisa waa kan ugu koreeyo. Halkaas ayuu ii saaran yahay. Qaabkaas ayaa loo bedeshaa codadka. Text tone-ka macnaha haddii message kugu soo dhaco kale codkee igu soo dhaca intaa ka bedelinaysaa. Waa kana nan hadaartid cod igu soo macnaha maqlin hadaartid maqal inta ayadan ka bedeli kartaa hadaartid midka kugu habboon. New voicemail-ka markuu ku soo dhaco kale qof cod uu ku duubo taleefanka ugu dansan yahay kale oo qof cod ku duubo kale message ayaa ku soo dhacaya. Message qaabka ugu soo dhacaya marka intaa ka bedelan kartaa ayana voicemail qaybta voicemail-ka codka kugu soo dhacaya, message-ka markuu ku soo dhacayo sida codadka kale waa asagana. Calendar alerts calendarkaaga marka aad waqti ku aadisto kale oo xasuusin camal ah oo message uu ku soo diro oo ku dhaw waqtigaaga waa la gaaray, waqtigaaga waa kaas markuu ku dhahayo kale codka igu soo dhaca asna meeshaas ayaa ka dooranaysaa. Reminderska waa kana alertiga oo reminderskana inta ayaa ka dooranaya ayagana kaarita ayaa dooranaysaa. Marka waa kana classic haddaad tagtid oo kale waa sii dooran kartaa mid kaaritid. Page kale ayaa kusii furmaya waa kana reminderska isna meeshan ayaa ka dooran kartaa. Haddaa rabtid meeshan ayaa ka dooran kartaa.
marka codka kugu habboon oo markaas adiga ku anfaco ayaa dooranaysaa. Marka codadka saas ayaa loo isticmaalaa, qaabkaas ayaan